kusoo dhawow channelka ka faa'iido aqoon fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe garee wixii su'aal aad qabtidna commentiga noogu soo qor ashka maanta waxaan ku eegaynaa haddii aad doonaysid inaad Facebook lacag ka samaysid waxaad ka samayn kartaa profile-kaaga ama Facebook-gaaga aad caadiga u leedahay aad isticmaashid ayaad u bedeli kartaa page kaas markaad page u bedeshid aad lacag ka samaynaysid shuruudaha markaad buuxisid markaa waxaan ku baran doonaa sida loogu bedelo casharka ku xigana waxaan ku baran doonaa sida shuruudaha loo baahan yahay marka aad u bedelaysid markaad u baahatid inaad waxaad ku soo dhufanaysaa barta Facebook-gaaga soo galaysaa Facebook profile-kaaga caadiga ah aad soo galaysaa haddaad saaxiibo fara badan 5,000 uu ka gaadho ka buuxsamay waxaad u bedelaysaa page follower buu noqonayaa ma joogsanayo uu soconayaa lacagna waad ka samayn kartaa muuqaalada yar yar gaagaaban soo galisid halkaas waxaad ku dhufanaysaa sawirkaaga ayaad soo dhufanaysaa profile-kaaga markaas profile sawir ku yaal soo gudfatid wuxuu ku keenayaa dashboard-kaaga markuu sidan ku keeno waxaad ku dhufanaysaa barta ku qoran tahay saddexda dhibcood ee koornaha ku qaala ayaad sida u kala garanaysaa marka saddexda dhibcood u kala garanaysid hoos baad soo baxaysaa wuxuu ku keenayaa qaybta ugu hooseysa koob ku qoran tahay halka ay ku qoran tahay turn ayaad soo taabanaysaa turn on professional mode inaad u bedeshid markaas ay bedelaysaa marka halkaas aad ku dhufanaysaa turn on kaas ayaad sida u kala garanaysaa wuxuu noqonayaa your profile follower setting will be public and anyone can see your public content in the feed qof kasto uu arkayaa wixii aad soo dhigtid profile buu noqonayaa profile-kaaga wuxuu noqonayaa public mid caalami dadka oo wada arkay marka turn baad ku dhufanaysaa on baad ku dhufanaysaa marka turn on ku dhufatid oo yar sugaysaa marka boostkaagi wuxuu isku bedelay markuu saa ku soo dhigo ninka Afrikaanka uu soo dhigo welcome to the professional mode ku soo qoray professional mode baa la yiraahdaa page-kaagi ayaad ka dhigtay si professional sababtoo ah halka isbedelka yimid waxa weeyaan friends-kaagi waxa marka friends ha 4,500 baha 4,500 friends-ka wuxuu ka dhigay followers buu ka dhigay 25 kana ana follow gareeyay wixii aan follow gareeyayna aan ku beerayna waa 25 wixii aan ku beerayna waa 25 marka saas uu ku noqonay 25 marka wuxuu qoranayaa explore yani waxa weeyaan eeg waxba ma baahnid isaga ku tusay kolba marka haddaad explore tiraadid waxa faa'iido ma tarayso waa aad doonayso ku barbaraya marka waad ku sii dhufan kartaa laakiin dhan baan oranayna marka saadanaadid isbedelka ku yimid waxa weeyaan friends-kaagi uu bedelay followers wixii ku follow gareeyna uu ku daray marka 1,500 baa follow gareynaysaa marka muuqaalo yar oo gaagaaban baa soo gelinaysaa reels baa soo gelinaysaa reels-ka waxa la yiraahdaa muuqaalka 1 minute ka yar ayaa soo gelinaysaa markaas halkaas dashboard-ka tagaysa marka doonaysid inaad exit gudaha u gashid markaas gudaha u gashid shuruudaha inta halkan uu soo dhigayaa inta ka followers-ka 4,522 kaas wixii aad soo gelisay inta gaadhay ku soo gelaya inta follower ku soo beertay hagaagaas xogtaadii oo dhan halkan ayaad kala soconaysaa ka bacdi shuruudaha halkan uu soo daraya marka uu ku gaadho shuruudii halkaas uu ku soo qorayaa monetizations oo ah in lacag aad ka samayn kartid page-kaagi halkaas saas loo dhigtaa Facebook page-kaaga Facebook profile-kaaga waxaa loo dhigtaa Facebook professional ayaa loo